Mid ka mid ah wadamada Afrika ee dhawaan bilaabay soo saaridda saliidda buundada xiriirisa dalalka dhaca waqooyiga Afrika iyo galbeedka Afrika ee ka hooseeya Saxaraha. Mid ka mid ah dalalka hodanka ku ah kheyraadka kala duwan sida macdanta birta ee iron-ka, saliidda iyo gaaska, dahabka iyo naxaasta ama kubarka, balse nasiib darro la ildaran saboolnimo daran. Dal dadkiisu kala bar la tacaalaan faqri iyo saboolnimo. dalka aan ka sheekeynayno waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania. waxaana si buuxda uga hadli doonaa taariikhda dalkan iyo dadkiisu ku leeyihiin waqooyiga Afrika iyo waxa sababay in dalkan uu ka faa'iideysan waayo kheyraadkiisa una la tacaalo saboolnimo daran. haddaba u diyaar garooba taariikhda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania. magaca dalkan waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania. guud ahaanna wuxuu ka kooban yahay 1,030,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. caasimadda iyo magaalo madaxda dalkan waa Nouakchott. tiro ahaan dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 4.6 milyan oo qof. luqadda ofishiyaalka ee dalkan looga hadlo waa luqadda Carabiga. waxa kale oo dalkan laga aqoonsan yahay luqadaha kale ah Bulaar, Soninke, Wolof iyo luqadda Senegal. dadka Mauritania diin ahaan waa Islaam Sunni ah sida magaca dalkan laga fahmi karaba. waxaana marka dalkan la xoreynayay la dhisay Jamhuuriyad Islaami ah si ay diinta Islaamka u midayso dadka reer Mauritania. dalkan wuxuu xuduud la wadaagaa dalal dhowr ah sida Mali, Senegal, Algeria iyo dhulka Saxaraha galbeed ee horey loo oran jiray Spanish Sahara. dalkan waxa uu leeyahay xeeb ku teedsan badda Atlantiga taasoo dhererkeedu gaarayo qiyaastii 435 mayl una dhiganto 700 oo kiiloomitir. Mauritania waxaa la degay oo la deegaameeyay qarnigii 3 ilaa 7. dadkii ugu horreeyay ee deegaameeyayna waxay ahaayeen dadka loo yaqaano Berberka oo asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga Afrika iyo dad Carab ah oo asal ahaan ka yimid jasiiradda Carabta. Mauritania waxaa mar ku yiilay caasimadda boqortooyadii Ghana taasoo markii dambe ay jebiyeen dagaalyahanadii Almoravid sanadii 1706. qarnigii 19aad gumeystihii Faransiiska ayaa gacanta ku dhigay dalka Mauritania ilaa laga soo gaaray sanadkii 1960. markaasoo Mauritania ay ka hoos baxday gacanta gumeystihii Faransiiska. wixii intaas ka dambeeyay waxaa dalka ka hana qaaday nidaam hal xisbi ah oo uu madax u ahaa Mukhtaar Ould Daddah, balse afgembi military ayaa xilka lagaga tuuray sanadkii 1978. Mauritania waxay sanadkii 1989 ilaa 1991 dagaal la gashay dalka Senegal kadib muran xuduudeed labadaas dal u dhaxeeyay. wada hadallo iyo nabadeyn ay garwadeyn ka ahaayeen qaramada midoobay iyo midowga Afrika. kadib waxaa la xaliyay muran xuduudeedkii labada dal waxaana dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed iyo wada shaqaynta labada dal. Mauritania waa dal aad u ballaaran inta badan dhulkiisuna waa lama degaan qallalan. dalkan wuxuu ka mid yahay wadamada dakhligoodu hooseeyo. kobaca dhaqaale ee dalkana waa mid ku tiirsan kheyraadka dabiiciga ah. marka loo eego dunida, Mauritania waa dalalka ugu dadka yar dunida. waxaana qiyaas ahaan la sheegaa in halkii kiiloomitir ay ku nool yihiin 5 qof oo kaliya. 41% dadka dalkan waa kuwa ku nool miyiga, waxaana ay dadkaasi ku tiirsan yihiin tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha. 58% dadka Mauritania waa kuwa la kulma saboolnimo dhinacyo badan ah sida waxbarasho la'aan, adeegyo caafimaad oo liita, biyo nadiif ah iyo shaqo la'aan aad u badan. Mauritania waa wadan sabool ah inkastoo uu hodan ku yahay kheyraad dabiici ah. sababo dhowr ah awgood, ugu horreyn juqraafiyadiisa oo adag oo ay ku badan yihiin lama degaan ballaaran iyo helitaanka biyaha oo adag ayaa si weyn u xadida beeraha, deganaanshaha iyo horumarka nolol maalmeedka. masuqmaasuq baahsan oo lagula kaco hantida iyo dakhliga ka soo baxa kheyraadka dabiiciga ah taasoo ka hor istaagta in faa'iidadaasi gaarto dadka caadiga ah. dhaqaalaha dalka wuxuu si aad ah ugu tiirsan yahay alaabo qiimahoodu isbedbedelo sida macdanta birta iyo kalluunka, taas oo ka dhigta dhaqaalaha mid nugul marka qiimayaashu hoos u dhacaan. waxaa intaas dheer maamul daciif ah iyo hay'ado aan xoogganayn kuwaasoo caqabad ku noqda hirgelinta siyaasado horumarineed oo waxtar leh. dalka waxaa kale oo ka jirta yaraanta shaqaale xirfad leh taasoo hoos u dhigta wax soo saarka iyo awoodda tartan ee dhaqaalaha.
kaabayaasha oo liita sida wadooyinka, korontada iyo adeegyada asaasiga ah ayaa sii adkeeya helitaanka fursado dhaqaale. Dhanka deegaanka, abaar joogto ah iyo isbeddelka cimilada ayaa horseeday burbur deegaan, hoos u dhac wax soo saarka beeraha iyo nuglaasho nololeed. ugu dambeyn, khilaafaadyo qowmiyadeed iyo kuwo bulsho ayaa carqaladeeya horumarka loo dhan yahay, taas oo sii fogeysa sinaanta iyo wadaagga fursadaha. guud ahaan arrimahan oo isbiirsaday ayaa dadka Mauritania ku xaniba wareeg saboolnimo. inkastoo dalka uu leeyahay awood iyo kheyraad uu ku gaari karo horumar waara haddii si hufan loo maamulo. khubarada dhaqaale waa kuwo ku talinaya in Mauritania ay noqon karto dal dhaqaale xooggan leh haddii ay si xeel dheer uga faa'iidaysato kheyraadkeeda dabiiciga ah iyadoo qaadaysa tallaabooyin istiraatiiji ah oo waara. marka hore waa in la helaa ilo kala duwan oo dhaqaale. waa lama huraan si dalka uusan ugu tiirsanaan hal ama laba kheyraad oo qiimahoodu isbedbedelo sida macdanta, birta ama kalluumaysiga. in la helo ilo kala duwan oo dhaqaale, tani waxay furi kartaa fursado cusub oo ay ku jiraan warshadaha, tamarta la cusboonaysiin karo iyo ganacsiga adeegyada. sidoo kale in la maalgashto dadka, sida in la helo waxbarasho tayo leh, tababar xirfadeed iyo daryeel caafimaad, ka oo kor u qaadi kara xirfadaha shaqaalaha, kordhin kara wax soo saarka, isla markaana u diyaarin kara dhalinyarada fursado shaqo oo casri ah. waxaa barbar socda horumarinta kaabayaasha sida wadooyinka, dekedaha, korontada, biyaha iyo isgaarsiinta, kuwaas oo saldhig u ah kobac dhaqaale oo waara. arrinka kale ee muhiimka ah waa xoojinta maamul wanaagga, daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si dakhliga kheyraadka dabiiciga ah loogu adeegsado adeegyada bulshada iyo horumarinta guud. tani waxay kalsooni u abuuri doontaa muwaadiniinta iyo maalgashadayaasha labadaba. ugu dambeyn, soo jiidashada maalgashiga shisheeye iyadoo la hubinayo sharciyo cad, amni maalgashi iyo jawi ganacsi oo fudud ayaa keeni karta tiknoolajiyad, aqoon iyo suuqyo cusub. marka qodobadan la isku daro, khubarada dhaqaale waxa ay sheegayaan Mauritania waxay ka gudbi kartaa saboolnimada kana faa'iideysan kartaa awoodda dhaqaale ee ay leedahay si ay u noqoto waddan hodan ah oo horumar loo wada dhan yahay ka hirgalo.